kala saar lahu kala sooco السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته صاحب الصور هذا جنال كداون إنسان وماد بنجب شيء أوفيشيال أنا قلنا وحنا هاي ماد بنجب شيء أنا قلنا وحنا هاي سعود سوسو موقال كان وحنا وحالي دونا سومالان من قرطة دولة مدح بنان وحنا ورئيس دونا ضد كال كان كسوغن وحنا كسوغن طالب الدلجير كداسون أو كسوغين ضد بدن ودول دقة اللي لواتن كجون أو مالين عالم الصوماليات اللي جت أقول الصوماليات dadka halkan ku sugan ayaa weydii doonaa Soomaaliland ma noqon kartaa dawlad madax banaan aan dadweynahan hareeraheena joogo weydii doonaa Soomaaliland in ay noqon karto dawlad madax banaan ma noqon kartaa haa ama maya waayahay isla socod wanaagsan muuqaalkeen ayaan gudagalaynaa insha Allah waxaan ku bilaabaynaa yarkan oo dharka calanka Soomaaliyeed ku libisan asiga ayaan weydii doonaa asigaan ku bilaabi doonaa marka hore magaca magacayga waxa waa Cabdijaliil Maxamed Cabdiraxmaan ku magac dheer Caynaan Yare انت معناها كتمت والله بالله waxaan ka imidnay oo degmada hodan ka timid waxa ku sugan tahay taalada daljirta daason aad weyn waayahay muuqaalkeena wuxuu ku saabsan yahay Soomaaliland ma noqon kartaa dawlad madax banaan Soomaaliland ma noqon karto dawlad madax banaan sababtu waxay tahay Soomaaliland iyo Soomaaliya waa mid Soomaaliland waa maamul goboleed ilaa gobol inuu go'o kaligiis ma noqon karo dawlad madax banaan وايا هذه هذه قوانك قعدت لو قلنا أو دلنا Soomaaliland دولة مدح بنان ما نقول كرتا مو قلالين أنكو شيء Soomaaliland دولة مدح بنان ما نقول كرتا وايا دولة مدح بنان ونقول إن هذا هذا أرتكو اللغة دي ما سمعنا كرتا ما تربط ما لها دولة عالم كلا ما يقانو هذا كورة واحد عادي إن مدح دي بحين وضبحين وضمدها سأتجن مرشل لقبنا intaan oo dhan madaxweynayaasha Soomaaliland miya ala intaan Soomaaliya say amal dalkiina sida u burbursay inta madaxo ka socoto isma lahan waaya marka daadu waxa aaminsan tahay Soomaaliland dawlad madax banaan ma noqon karto Soomaaliland ma noqon karto dawlad madax banaan waaya aad oo maastan marka hore soo dhaw magacaaga waa dhaw magacayga Deeqa Cabdi Cismaan deeqo maanta waa libisan tahay waxaad u dabaaldegaysaa 26 Juun aad weyn ha qeyradeyda 26 Juun ka waran dareenkaaga 26 Juun ma sha Allah farxad Soomaaliland دولة ما نقول كرتا ما نقول كرتا ومعمول قبلات وماليا دولة وما سنتا يقولنا سكرية ما أنت واحد جبت الجير كدهسون ودول دقيسة سيدا أوجد لحيلاتن كجونا ودول دقيسة واحد جبت سؤال شخص وحين نقونيسا مجعلان لها Soomaaliland إن دولة مدح بنان نقونيسو مايا محد عاد كوس Soomaaliland وصوماليا Soomaaliland إن كلا قاعدة تسمو ونكسن Soomaaliland سيدا أوجنا بحج عليين إن حرني مقاطعن حكى لنا dadkaas fikrad aaminsan mid waa kale yani Soomaali waa halaleeda laakiin dawladda waxa ku diidayna Soomaali kala kooda ma jeceli ma sha Allah ma santahay wadin Soomaaliyada taa ku mad celinayna Soomaali aan dhaweynaya gabadhana soo dhaweynaya aad ku quruxda badan ku libisan calanka Soomaaliyeed su'aaliyaha dadka weydiinina iyadana weydii doona insha Allah waaya marka hore magaca Saciida Bukar Cali Saciido inta ka timid Alkamiin ka timid وايا سؤال وحاجة برشة كان قصوا أنا ودينينو تاسوا Soomaaliland دولة ما نقول كرتا وين نقول كرتا عديل وده أو قانك قانتا أو كجرو Soomaaliland دولة وقلا إني نقط مو قلالين دولة الدنك وقيمة بدنا كديجلا ده أوذو صوت متى ده وتشعل وضد Soomaaliyeed أو الحماية أو عقبات بدن لو جست وأنا وايا هذا ما سنت تقناله thank you gabadhana iyadana weydii doonaa fikradeeda waxaan ku sugannahay taalada daljirka daason oo ay ku sugan yihiin kumanaan shacab Soomaaliyeed oo u dabaaldegaya 26 Juun balse anaga muuqaalkan wuxuu ku saabsan yahay Soomaaliland dawlad ma noqon kartaa waaya gabadhana markaa weydiinna marka horta magaca Nasro inta ka timid Tawfiiq ka timid waaya waxaan ku weydiinaynaa Soomaaliland dawlad ma noqon kartaa ماي waxaa aaminsan tahay Soomaaliland dawlad ma noqon karto ها waaya aad oo maasanta هذا magaca
magacaygu waa Muna Cabdiraxmaan Axmed. waaya muno ku soo dhawow janaalka mahad bunjabshe official waa ku dhawahay. waaya inta ka timid marka hore inta ka timid tawfiiqa ka timid waaya su'aalaha waxaa jira dadka aan weydiinayna taas waa Somaliland dawlad ma noqon kartaa ma ima noqon karto. sababtu maxay tahay waa maamul goboleed waaya aad u maasantahay weli waxaad daawanaysaan muuqaalkii aan ugu hadlaynay Somaliland dawlad madax bannaan ma noqon kartaa marka wiilkan soo dhaweynaya marka hore magaca cabdiqaadir ali dhaa cabdiqaadir oo ku soo dhawaa janaalka mahad bunjabshe official waa dhawaay walaal waxaan ku weydiinayaa su'aalaha weydiinayna dadka halkan ku sugan oo ah Somaliland dawlad madax bannaan ma noqon kartaa haa waan jeclaa inay noqoto sababtu maxay tahay haddii suurtagal leed waa la yeeli lahaa laakiin hadda adigu waxaad jeceshahay Somaliland inay noqoto dawlad madax bannaan haa aad u maasantahay hay saaxiibayaal muuqaalkan intaas ayuu ku egyahay haddii ay tahay markii ugu horeysa janalka hadda waxaan ka codsanaynaa subscribe noo saarto like iyo share na nagu caawiso waxaa inoo balana muuqaalka insha Allah aad iyo aad u mahadsantihiin